khibradaada uga faa'iiday naftaada. qofku khabiir ma noqon karaayo, khibradna ma helayo haddii uusan maskaxdiisa si saliim ah uusan uga shaqaysiin. mar walbo aad maskaxdaada si saliim ah aad uga shaqaysiisid waxa aad noqonaysaa mid ku dhowaada ama cagta saara dariiqa horumarka. mar haddii aad dariiqa horumarka aad cagta saartid waxa aad helaysaa khibrado badan. qofku mar walba uu khibrado badan uu helo waxa uu noqonayaa mid si sahlan ku hela furaha sirta nolosha. mar haddii aad furaha sirta nolosha aad heshid waxa aad noqonaysaa mid naftiisa iyo dhammaan bulshada kale ee ku xeeranba si fiican wax u tara. isla markaasna waxa aad dareemaysaa habbi, waxaana noqonaysaa mid naftiisa saacad walba ku kalsoon. xataa haddii dhaqaalo badan uu ku soo galo oo shaqooyin fiican aad heshin, iyo haddii wax dhaqaala aadan haysan, wax shaqaana aadan gacanta ku hayn, waxa aad noqonaysaa mid dabcigiisu uu hal mid u yahay. bal u fiirso, waxa aad arkaysaa dad dhaqaale leh, ganacsato ah ama dhaqaalo badan ay gacanta ugu jiro. mar haddii uu ganacsigooda ama dhaqaalahoodu uu hoos u dhacona xataa moraalitigoodu uu isbedelayo. maxaa yeelay dadkaasu ma aha dad helay furaha sirta nolosha, laakiin waxa ay heleen dhaqaalaha ma aha mid mar walba xasilooni lagu helo. laakiin haddii furaha sirta nolosha aad heshid waxa aad noqonaysaa mid haddii dhaqaalo haysto iyo haddii kaleba mar walba habbi ah, sababtoo ah dhaqaaluhu waa uu dhammaadaa. laakiin furaha sirta nolosha haddii aad heshid mid kaa dhammaanaya maaha. dhanka kale u fiirso, haddii aad maskaxdaada si negatiifa aad u adeegsatid oo aan saliim ahayn, qaab nooceeya ayaad noqonaysaa. marka ugu horeysa waxaad cagta saaraysaa dariiqa horumar la'aanta iyo burburka. isla markaasna waxa aad noqonaysaa mid qayrkii ka hara, nafsadiisa ku habsaama, bulshada kalena saacad walba borobaleen ula taagan. dhammaan dadka oo dhanna markaa waa ay ku karaahsanayaan. mar walbana bulshada aad ku dhex nooshahay waxa aad kala kulmaysaa caqabado iyo dhibaatooyin badan. qof walba oo ku arkana waa uu kaa leexanaya. haddii aad tahay caynkaa, maxay dawadaadu tahay? dawadaadu waxa ay tahay in dadka kuugu dhow ays oran karni alle dadkaas hadalkaaga waa ay maqlayaan, in aad dadkaas aad ka agdhowaatid, isla markaasna aad la tashatid, waxa aad ku jidhidna aad ka waantowdid. sababtoo ah kamana aad waantoomi kadhid haddii aadan meel fariisan oo aadan isweydiin adigu bal horta shakhsi caynkee ayaa tahay. u fiirso, waxa aad tahay qof bini'aadan ah, waxa aad tahay qof caqli leh, waxa aad tahay qof asaagii la tartami kara, waxa aad tahay qof wax walba uu dhibaato iyo borobelan uu sameeyey joojin kara, isla markaasna qaadan maskaxdiisa si saliim ah uga shaqaysiin kara, isla markaasna bulshada uu ku dhex nool yahay tallaabo fiican la qaadi kara. ma tihid. ku day marka walaal in aad maskaxdaada si saliim ah aad uga shaqaysiisid. bal u fiirso sheekadan. waa wiil dhallinyaro ah, waxa uu ka baxay secondary, waxa uu waayay dhaqaalihii uu jaamacad ku dhigan lahaa. isla markaasna waxa uu guda galay inuu maskaxdiisa si saliim ah uga shaqaysiiyo. ugu horeyn, inta aana guda galin sheekada tan, marka ay dhammaato waxaa ka faa'iidaysaa qodobo dhowr ah, balse aan ka soo qabto 3 qodob oo keli ah. kow, mar walba aad maskaxdaada si saliim ah aad uga shaqaysiisid waxa aad noqonaysaa mid naftiisa ku kalsoon. 2, u fiirso wax walba oo gacantaada soo gala, ha la ordin, hana la cararin. isweydii, waxaan gacantaada soo galay xaggee ayay kaa soo galeen? haddii aad la carardi xaggee ayaa la gaaraysaa? muddo intee la-eg ayaad ku noolaan kadhaa haddii uu dhaqaale yahay, haddii uu sir yahay sidii warqad aad meel ka heshay, ama qof saaxiibkaaya, ama meel aad ku nooleed oo qof sirtii aad gacanta ku dhigtay, maxaa dhib noocee ayaad kala kulmi kartaa? qofkan haddaa ceebtiisa asturtid wax nooceeya ayaad heli doontaa. sababtoo ah wax walbo aad heshid oo dhaqaale ah waxaa kaaga fiican inaad qof walaalkaaya aad ceebtiisa asturtid, inta aad sirtiisa aad heshidna aad si tartiiba aad ugu wareejisid, isla markaasna kalsooni aad siisid in aadan sirtiisa hesha aadan cidna aadan uga faafinayn. sababtoo ah dadnimada iyo insaaniyadda iyo shakhsiyadda wanaagsani waxa ay qofka tusaale ahaan ugu tahay inuu qofkaanu wax walbo aad gacantaada soo gala uu yahay sidii wax aad adigu lahayd, isla markaasna qof kale gacantii galay. maxaad isweydiin lahay sir aad leedahay haddii ay bannaanka ay u baxdo oo qof saaxiibkaaya uu helo?
maxaad is oran lahayd dhaqaale aad lahayd haddii uu ka halaabo oo qof kale uu gacanta ku dhigo intaas iyo in ka badan ayaa la rabaa inaad isweydiisid marka walaal noqo mid u fiirsada wax walba oo gacantiisa soo gala qodobka saddexaad noqo mid qof walba inuu fahmo isku daya sababtoo ah bulshada waxaad ku arkaysaa dad badan oo aan la fahmi karin dadka badan oo aan la fahmi karin looma umar dariiqa ugu dhow ah is oran kadid waa qofka waa lagu fahmi karaa balse qof walba oo la fahmi waayey ma aha in laga cararo balse waxaa habboon in loo maro dariiqa qofka la oran karo allele dariiqaas ayaa lagu fahmi karaa sababtoo ah macallinku marka uu wax sharaxayo xisaabta oo kale waxa uu u marayaa dariiqa ay is oran karo dariiqan ayay ku fahmi karaan intaa kadib sheekadu waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan waa wiil dhalinyaro ah waxa uu ka baxay secondary xilligii sagaashameeyadii waxaana dhacday dowladdii dhexe waxa uu waayay dhaqaale uu dibadda uu ku aado uu jaamacad ku soo dhigto waxa uu guda galay inta uusan jaamacadda aadin markii xaalado badan la kulmay awgeed inuu marka ugu horreysay bal nafsadiisa uu maareeyo sidii uu nolol fiican ugu noolaan lahaa waxa uu guda galay inuu maskaxdiisa si saliim ah uga shaqaysiiyo isla markaasna waxa u soo baxay inuu dekedda magaalada Boosaaso uu u shaqo tago xeebtana uu aad uga kalluumaysto waxa uu kalluunka ka soo helay ayuu nafsadiisa ku maareyn jiray dhaqaalaha uu ka soo helay waxa uu qaybin jiray dhowr mid ka mid ah waxa uu isticmaali jiray khadka habeenkii waxa uu fariisan jiray internetka saaxiibadiisa oo dibadaha jira ayuu kula xiriiri jiray Gmail iyo warqado kuwaasoo internetka la iskugu diro waxa uu akhrin jiray oo aad ugu dhex jiri jiray website-yada caalamka xilligaa ma aysan jirin waxyaabaha social media aad ugu soo batay sida Facebook, Fiber-ka iyo WhatsApp-yada iyo waxyaabaha kale ee bulshada ay isticmaasho oo social media ka mid ah kuwaasoo ay fariimo badan ay bulshada ay iskugu diraan wixii uu muddo sida uu ku jiraba waxbarashadiisa ayuu ku ilaashan jiray si uusan u noqon mid xagga iyo dhaqaale kaliya fiirsha balse mar walba waxa uu ku taami jiray xilli uun ayaa geli doontaa nolol tan ka wanaagsan muddo yar kadib waxa ay isbarteen gabar taasoo ay ka wada xiriiri jireen internetka warqadana ay iskugu diri jireen Gmail muddo yar kadib waa la isbartay isbarasho iyo wada socod kadib waxa la isweydiiyay dunida xagee ka joogtaa waxa ay tiri waxaan joogaa dalka Mareykanka isagii xaaladii waa ay ku adkaatay waxa uu sheegtay inuu dhaho dalka Australia ayaan joogaa wixii muddo sida lagu wada socdaba ugu dambeyntii waxa la isla meel dhigay in mustaqbal iyo nolol fiican lagu wada noolaado balse waxa la kala joogaa laba wadan oo maqshir iyo maqrib ah tolowsee la isku heli doonaa wixii muddo sida lagu wada socdaba xiriirkii waxa uu socday muddo 6 bilood ah waxa la isla qaatay in la ismehersado xagee isku mehersanaa ayay tiri inantii waxa uu yiri inaan ka baaraan degno ayaa fiican taas waxay tiri Ingiriiska ka waran maya buu yiri Ingiriiska aad uma jeceli Talyaaniga ma isku nimaanaa maya adiga xagee ayaa door bidi lahayd waxa uu yiri waxaan muddo ka soo maqnaa dalkii Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inaan wadankeena hooyo aan soo fiirsho isla markaasna meel ka mid ah aan isku soo mehersano oo isku nimaano Soomaalidu waxay dhahdaa daacadi ma hungooto gabadhii waxay tiri waaya haddii aad sidaa door biday xilligee ayaan ka dhiganaa waxa uu yiri waxaan jeclaan lahaa inaan ka dhigano 6 bilood kadib waxay tiri 6 bilood ayaan wada soconay 6 bilood kadib miyaan ka dhiganaa meherkeena aniga sidaas ayaan jeclahay ayuu yiri waxa uu tiri maxaad ka qabataa Australia waxa uu yiri 6 bilood waa xilligii jaamacadda aan dhiganay ugu dambeysay balse waxaan doonayaa 6 bilood haddii ay jaamacaddu dhaafto inaan dalkeena imaano isla markaasna halka aan isku mehersano kadibna aynu dibadda aynu ka aadno gabadhii waxay tiri ugu dambeyntii waayahay waa aan kula qaatay wiilkii waxa uu sameeyay dhaqaale uu ku aado ma haysto xataa Hargeysa isaguna waxa uu joogaa Boosaaso qoftaana waxay joogtaa Mareykanka waxa uu yiri Australia ayaan joogaa tolo xagee buu ka keeni doonaa dhaqaale Hargeysa ku aadaya ugu dambeyntii gabadhii waxa uu yiri anigu waxaan galayaa imtixaamaadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda shaqo badanna waa ii taala Gmail-ka ayaan 6 bilood ka wada xiriireynaa markii la isla qaatay kadib Gmail-ka waa uu xiray waxa uu waana uu shaqo tagay waxa uu aaday bariga hoose iyo xaafuun si uu aragoosato iyo maadaama uu kalluunka ka shaqeyn jiray oo halka dhaqaale uga soo helo waxa uu halka ku maqnaa 6 bilood kadib ayuu
soo fariistay gmailkii mise maxaa warqadii yaala waxa uu akhrinayo dhowr maalmood kadib ayuu u jawaabay waxay tii war maxaa kugu dhacay waxa uu yiri imtixaankii ugu dambeeyay ee jaamacadda ayaan fariisanayay waxa aan diiday inaan ismashquuliyo hadeer waxaanahay habi wax walba waa aan ku tallaabsan karnaa meel walbana waynu isugu imaan karnaa okay maxaa inoo kala dambeeyay waxay tiri niyahow intaasoo dhan adiga ayaan ku sugayay waana aan kuu dulqaadanayay adiga hadda maxaan kaaga talagalaa ugu dambeyntii waxa uu yiri aniga hadeer waa aan soo kacayaa Soomaaliya ayaana imaanaya Hargeysa ayaana si toos ah u tagaya waa inoo 3 bari iyo kadib qaala muxuu soo helay muxuu Hargeysa la tagi doonaa muxuu Hargeysa ku doortay gobolada tan waa laga yaqaanaa inuu dekada ka shaqeyn jirayna waa la yaqaanaa balse Hargeysa lagama yaqaano waxa uu soo helay lacag $1,000 waxa uu tagay Hargeysa gabadhii waa ay soo degtay isagoo jooga 3 bari magaalada Hargeysa waxa uu sameeyay markii ugu horeysay oo la kulmay waxa ay ahayd xilli lagu qiyaasay saacada Afrikada bari xilliyada adigu 5 ilaa 6 inta u dhaxaysay gabadhii waa ay timi waxa la degay hoteelkii uu joogay waa la wada hadlay duhurkii kadib ayuu yiri maxaad inoo soo dhigtay bangiga anigu waxaan bangiga inoo soo dhigay ayuu yiri 20,000 waxa uu wato waa lacag $1,000 ah iyadu waxay tiri waxa inoo soo dhigay 50,000 wuxuu yiri waa okay waa inuu ku filan tahay meherkeena iyo 3 bilood aan joogi doono waxa aad samaysaa iska naso بعد العصر كوحي أفرت قلم نما لو قارو أيينو إن شاء الله تعالى أينو قد قل دونا أرميهانا كلا intii ay duhurkii jiiftay ayuu waxa uu guda galay inuu baleen dejiyo iyo lacagta $1,000 sidii uu uga faa'iideysan lahaa iyadana uu uga faa'iideyn lahaa waxa uu qorsheeyay 10,000 oo kamid ah inuu nin saaxiibkiisa u diro oo Australia jooga oo dhaho saaxiib waxa ay soo sameeysaa sharci aan Australia ku galo isla markaasna kuma warrami karo ilaa aan dalka imaado 10,000 xawaalada ayaan ku soo dhigaya ka qaado 10,000 waxa ugu talagalay markay iyadu America aadayso inay diyaaradda ku sii raacdo 10,000 waxa ugu talagalay markuu isagu Australia aadayo inuu diyaaradda ku sii raaco maxaa lacagtii ka haray 20,000 ayaa ka haray 10,000 waxa ugu talagalay 3 bilood ay meesha joogaan Hargeysa inay ku noolaadaan 10,000 waxa ugu talagalay in 5,000 Suuriyada iyo waxyaabahaas ay ku baxdo 5,000 oo marka ugu dambeeya xaq salaamo oo dadka uga dhigo iyo dadka soo booqanayo $1,000 waxa ugu talagalay uu isagu xagga kala yimi inuu habeenka uu meherka ku dhameystiro meherkii waa uu dhacay galabtii habeenkii ayaa la wada fariistay waxa laga wada hadlay mustaqbalkooda iyo ajendayaashooda dambe waxa la isla gartay in 3 bilood la joogo 3 bilood kadibna la isku 3 bilood kadibna qof walba uu aado wadankii uu ka yimi isagu markii hore waxa uu sheegtay Australia iyadu waxay aadaysaa Mareykanka 3 bilood kadib isaguna wuxuu aadayaa Australia waxa lagu ballamay 3 bilood kadib in la isku yimaado dalka Ingiriiska isla markaasna halka la isku arooso halkaasna ay caadi u dagaan ugu dambeyntii waxa ay gabadhii aaday Mareykanka isaguna wuxuu aaday Australia waxa saaxiibkii ayuu u tagay waxa uu yiri wax war aan ku dhameystiri karo ma jiro waxa aan rabaa gabadha oo qisada noocaasna soo dhaxmartay inaan ku aroosto Ingiriiska wax dhaqaale aan hayana ma jirto waxa aan ka doonayaa inaan shaqo degdeg ah ay la dootid shaqo uu helay kadib waxa uu soo helay dhaqaalihii uu ku aroosan lahaa gabadhii waxa la isku yimi ugu dambeyntii Ingiriiskoodii waxa uu ka dhacay Ingiriiska London kadib waxa uu dhashay 5 ciyaal kadib ayuu habeenkii dambe gabadhii soo fariisiyay waxa uu na tusay Gmailadii iyo warqadihii uu uga soo diray Boosaaso markii uu Soomaaliya joogay way yaabtay waxay tiri daacadnimadaada ayaa Ilaahay kuugu gargaaray markii hore wax runa waa uga qaadan weyday way yaabtay waxyaalo badan ayaa la isweydiiyay kadib nolol fiican ayaa halka ka sii wada galeen ugu dambeyntii sheekadii waxa ay ku dhamaatay halkaas inta aysan sheekadu dhamaan ka hor qodobadii 3 ahayd aan inii soo bandhigay sheekadan ma ku haysaa mise kuma haysid haddii ay sheekadan qodobadii 3 oo aan intaana sheekada bilaabin aan ku hayay noqo mid 3 qodob qaata mar walba aad maskaxdaada si saliim ah uga shaqaysiisid waxa aad noqonaysaa mid nafsadiisu ay habbi iyo istiraah dareento mar walbana horumar fiican nafsadiisana horumarsha dhammaan bulshada kale ee ku xeeran si fiican u horumarin kara
ugu dambeyntii khibradaada uga faa'iiday naftaada maskaxdaadana si saliim ah uga shaqaysi social media waxaad ogaataa qof walba sidii uu u isticmaalo inuu yahay haddii aad si negative aad u isticmaashid waa adigoo maskaxdaada si negative aad uga shaqaysiiyay haddii aad si saliim aad u isticmaashidna waa adigoo maskaxdaada si saliim ah aad uga shaqaysiiyay waa anigoo ah Maxamuud Axmed Cabdi Orshe waxaan inuu ku talagalay barnaamijyo kale oo intaa ka badan dhammaan waxaan doonayaa inaan bulshadeeda la wadaago dhammaan humuumta iyo khibradaha ku duugan si aan khibrado badan aan ku soo bandhigo idinkuna aad khibrado badan kuwa aan ka hela oo u noqotaan noqda kuwa barnaamijtan si fiican ula socda noqona mid maskaxda si saliim ah mar walba uga shaqaysiyo